waxaan marayna heer sare haatan ilaahay maadi iyadoo arintaas faan ahayn wax dhab ah oo la taaban karo oo adigu indhaha aad ku aragtay ay tahay dadka cajalkan daawanaya ee gudaha iyo dibadda jooga ee u dhashay gobolka dhulkan reer Ogaadeniya wax tala ama tusaale ama fikro soo jeedinaysa ma jirtaa nacam waad mahadsan tahay maxamed waxaan soo jeedinayaa dadka shacbiga reer Ogaadeniya ee la dhasheen ee dagaalka ku jira inuu ay kaalmo heeliyo isla garab taagaan halgankoodana ay dhinacay kaga jiraan runtii dhinac muhiim ay kaga jiraan aad bay muhiim runtii ma xaqirayno waa 24 saac way ordayaan way halgamayaan dhaqaalaha bixiyaan shirarka bixiyaan barnaamijka siyaasiga ah oo caalamka la tusayo iyo mudaharaadada ka qayb galaan waxaan leeyahay walaalayaal laban laaba halganka wuxuu marayaa meel muhiim ah oo aynu hubo inaynu guushi inagu soo dhowdahay ay gacmahayna guushi wax yar oo muddo yar oo dhaqaajinay inooga hadhay waxaan jecelahay inaad isgarab taagtaan ciidanka xoogga qaranka Ogaadeniya oo gacanta guushi ay u soo galaysaa in yar uga hadhay inaad idinkuna qaybta idinkaga aadan sare u qaadaan baan idin rajaynayaa waanan idin hambalyeynaya hawlaha ku jirtaan waxaa jirta dad odayaal ah oo u dhashay gobolkan oo qurbaha jooga oo aan ku jirin halganka xoreynta Ogaadeniya inay ku jiraan iska dhaafay ka soo horjeedaba dadkaas oo magacana ku lahayn jiray gobolka tala ahaan iyo fikir ahaan maadaama noqday aad tahay way aragnimo badan aad leedahay maxaa talada u soo jeedinaysa dadka ay tahay si khaas iyaga waxaan u soo jeedinay horta waana si darro ku dhacday shacbiga reer Ogaadeniya oday hadduu noqdo odayba meeshii la rabay shacbigiisa tala iyo tusaale iyo hogaamin oo ku xoroobo uu qaban lahaa waxay ku qabtaan inay cadowga u liidaan waxaan u soo jeedinayaa nimanka iyaga waddanku wuxuu xoroobayaa wax yar baan ka hadhay runtii ninkii la hadhow waddanka inuu waddankayga noqon doono waxaanu anagu runtii niman ma nihin intay xoreeyaan iska joogeen wax badan baanu ka qaban doonaa cid walba waxaanu ku qiimeyn doonaa wixii ay halganka ku tarto ay iyadu ku kordhiso yaanu ku qiimeyn doonaa berri ma soo gelayo nimaan halganka hadda maanta ka qayb qaadan oo shacbiga iyo bulshada dhibta iyo dilka iyo dhaca iyo kufsiga ku jira aan ka qayb qaadanina oday iyo caqli isku sheegaya berri ka maalin ma soo gelayo waddanka dhalasho iyo soo gelitaan midna ku yeelan maayo wax xaqiiqiyan arrintaas iyadii waana dhab una geeya gaarsiiya ma soo gelayo qoliyaha dabaqoodhigana maxaad leedahay dabaqoodhigu ha dhinteen waa sida kuwa qiyaanaha noo gumaadeen noo dileen yana wacaysan doonaa ha go'een dabaqoodhigu ha go'a baan ku leeyahay ha go gacan bir aanu ku qabanayna haddii la yidhaha ka dibadda iyo gudaha ka doolka halkiisaanu ku ognahay hal baanu u waadhsan doonaa hadda hadday isa soo dhiibaan oo jaaliyadaha isu soo dhiibaan oo ay cafis dalbadaan cafiskaas uu socon wixii hadda ka bilaaba haddii aan su'aal kale ku weydiiyo dad badan ayaa waxay u arkaan ama ay sheegayaan in dad shacabka aad laysaan sabab la'aan arrintaas oo meelo badan la iska weydiinayo maadaama aad xoogaal u tahay arrintaa bal maxaad ku jawaabi lahayd arrintaa maxamed oo waad mahadsan tahay arrintaas waxaa weeye meel dagaal ka socdo waad og tahay runtii dagaal ka socdo waxaa ka ima dhibaato badan xaalad baa dhici wax badan oo loo kaseenin oo ka maadhici kolkii aan taa ka gudbo waxa weeye kuwa dabaqoodhiga doolkii aad u naashnaashiyaan ee ay meelaha la warwareegaan waxa weeye waa dad ka horeeya cadowga Tigreega ee jabhadda waddanka xoreynta Ogaadeniya la dagaalamayso rag ka horeeya weeye xaqiiqa waxa weeye kuwa cadowga hogaaminaya kuwa waxa weeye xabadda ridaya kuwa waxa weeye ay xabadda wayaanaha iyagu ka horridaya kuwa jabhadda gumaadaya weeye kuwa shacbiga reer Ogaadeniya ka dhasheen argagaxa iyo dilka iyo dhibaatada kuwada weeye kuwa wayaanaha ku dilay weeye gabdhaha naasaha laga goynayo ee sida xun loo mirjinayo ee la dabayo kuwa ka horeeya weeye ee iyagu haddii bidix leeyahay ee ku dilay weeye nimankaas waxa weeye niman aan cafis lahayn ninka ka cabaaday ee kuwa u arka dhibaato shacbiga loo geysanayo u arkaana waa nin wayaanaha midigtiisa waa nin garab taagan waa nin in shacbiga Ogaadeniya xorooba aan rabin weeye xaqiiqa waa saas wixii jabhadda ka dhacay ee gaf waxa weeye gafi waxa weeye wax kama ku dhacay oo meel dagaal ka socdo wad ogtahay saaxiib
وحوي عدو قارو حضركي يجوا باورت الله صار عدو أي قعنت كل عدو عدو باورت كل حجرو وحوي وح نوع عود عمويه وحجب هذا وطني حرينة أولادين يجوا الشعب يجوا حرينة سواء الشعب يجوا وحيلي الشعب كان حرينة يانو أنا قميص ثقة عن صدني يا أفر تدوسنا الأسود تجلمي nin shacbi oo inta ugu jiray isaga inaan xoreeyo inaan dilo ma dhacayso jabhadu waa ka nadiif ma dhacayso waxa wada barnaamijka kuwa u shaqeeya cadawga u shaqeeya wada barnaamijka waa xaqiiqo waa Maxamed saasan ku sheegay marka ma waxaad leedahay wax shacab oo aan gacantanada ku dilo oo sabab aan lahayn oo aan dilo ma jirto leedahay waa sida waxa weeye walaal waa nin maxkamad la saaray waa nin dambigiisa in badan la daba socday waa nin digniino badan la siiyay waa nin in badan la waaniyay وانين لقى قوستي أو نقضي مديكتا تكريغا أي نكحرين إن الشعب جنوي نينك أي شرهدوا محكمة كديشة محكمة الله عن سيد الشهاد ما مديشنين عد مديشة محكمة الله عن كقفكم مركب ولا محكمة بالصارية محكمة بالصارية محكمة داسيوك باردقيسة دقنين بالصينية كو لابا طلبات تصدحات أفر بالودلية يعني كا وحوي وحصل الله غفر سنين من الدليل وأنا حقيقة رنتها سوا وح عند عندوي هذه الضمة صدقني هذا مضن